سلام مدحوينه وسلام دب بسم الله الرحمن الرحيم golaha wasiirada xubnaha ka jooga guddoonka gobolka iyo degmada iyo xubnaha golaha deegaanka isimada nabadoonnada iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada ee maanta sida diiran noogu soo dhaweeyay magaalada Boosaaso safar muddo dhowr casho qaatay oo aan ku tagnay magaalada Kismaayo markii ugu horreysay aad baan iga mahad celinayaa waana inaga raali gelinaynaa dib u dhac yar oo nagu yimid muddada aad taagneedeen waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in aan isku soo guriyo noqonnay annagoo nabad ah iyo idinkoo nabad ah waxaan rajaynaynaa haddii ilaahay idmo muddada soo socotana inaan howlihii shaqo ee aan Boosaaso u sii joogay ay sii socon doonto dabcan sidaad ka warqabtaan waxaan ka qayb galnay xafladii caleemasaarka ee magaalada Kismaayo loogu qabtay madaxweynaha cusub la doortay Axmed Maxamed Islaam runtii waxay ahayd caleemasaar si mug leh uga qayb gashay dowladda Puntland isugu jiray wasiiro xildhibaano odayaal iyo dad kala duwan oo runtii bulshada ka mid ah wuxuu ahaa miisaan weyn oo Puntland ay uga qayb gashay aniga iyo madaxweynihii hore Abdiraxmaan Faroole oo isaguna runtii kaalin weyn ku lahaa xilligii ay asaasmaysay Jubbaland
runtii dadkaas waxayna soo fureen salaan waxay aad uga mahad celiyeen inaan kala soo qayb galno iyo garab istaagga mar walba aan garab taagannahay xaaladaha ay soo maraan waan rajaynayaa haddii ilaahay idmo mar walba jubbaland oo runtii 30 sano ay u dambeysay soomaaliya khilaaf ka jiray meelaha ugu badan oo khilaafaadka iyo isriixriixu uu ka dhaco ay tahay maraaxil badan soo martay gacan ku hayno fara badan iyo isbedbeddel ay soo martay ugu dambeyn iyada oo soomaalida kaashanaysa puntlandna qayb kuleed waxay ku guulaysatay inay maamul ay dhisato nidaam dowladeed ah oo aanan noqonayn mid la kala qabsado ee mid loo tartamo oo lagu kala guulaysto ee noqon doona haddii ilaahay idmo markii ugu horreysay oo 2 sano ka horreyso kumeel gaar ahaa laakiin teeramkii ugu horreeyey markuu dhammaystay teeramkii labaad hadduu ahaa si nabadgelyo ah oo runtii hufan buu ku dhacay dadkuna aada ugu faraxsanaayeen runtiina annaga muddadii aan joognay dadka reer puntland abaal badan ay ugu hayaan inay mar walba inay jubbaland istaagto inay jecel yihiin iyaga iyo soomaalidii kale ee ka soo qayb gashay meel walba kale isaga timid runtii arrintaas waxay ahayd arrin mar walba muhiimaddeeda leh inkastoo dad aada u fara badan oo soomaali ah oo xildhibaano iyo senataro iyo mas-uuliyiin kala duwan isugu kala yimaadeen halkaas laakiin wafdiga puntland runtii qiimo gaar ah ayuu u lahaa annagana runtii waan ku faraxsanayn inaan walaalahayn meel walba ay joogaan isteedyada kaleeto maadaama puntland mar walba nidaamka federaaliga iyadu ay saldhig u ahayd state kasta oo sidaas oo kaleeto ay wax la soo gudboonaadaan ama doorashooyin ay xaflada dhiganayo ama dhibaatooyin kaleeto ay yimaadaanba mar walba puntland waxay diyaar u tahay isteedyada soomaalida oo dhan inay garab istaagto waxa ay ka mudan tahayna ay mar walba ay siiso iyadana waan rajaynaynaa runtii magaalada nabadgelyadeedu 100% bay ahayd culaysyo dhinacyada ka saaran xuduudaha oo dhinacyana waxaa ka jira nimankii nabaddiidka ahaa hawada iyo baddana culays baa ka saarnaa dhinaca dhaqaalaha duruuf adag baa ka jirtay waxaan rajaynaynaa haddii ilaahay idmo dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan inay bulshada badan oo halkaas ku dhaqan culayska dhaqaale oo saarnaa iyadana in looga gurmado gaar ahaan dadka reer puntland waxay filayaan inay maadaama dad ganacsataana la ahaayeen in ay maalgelinta maadaama magaaladii degan tahay ay ka qayb qaataan waan ku faraxsanahay shirkado fara badan oo shirkadihii reer puntland ahaa oo boosaaso caanka ka ahaa ayaa markaa waddooyinka maraysaan magacyadooda iyo xafiisyadooda ay ka muuqdeen iyadana waa wax weyn oo qayb bay ka qaateen shirkadaha korontada kuwa biyaha kuwa badan qayb weyn bay ku leeyihiin haddana in halkaa laga sii wado waan rajaynayaa haddii ilaahay idmi soomaaliya dhibaatada maraaxishii fogeed ay soo martay inay ka raysan doonto in hore loo socon doono nidaamka federaalka inuu shaqayn doonaan ilaahay rajaynayaa khilaafaad kasta iyo aragti kala duwanaan dulqaad iyo wada hadal iyo isqancin in looga gudbo nidaamkeenna weli curdunka inuu taabagalaan rajaynayaa khilaafka dowladda federaalka iyo jubbaland u dhexeeyana waxaan rajaynayaa inay puntlandna diyaar u tahay inay kaalinta kaga aadan ka qaadato intii hadda wax socdeenna qayb weyn baan ku lahayn isku soo dhawayntooda haddeertaanna waxaan rajaynaynaa inaan sii wadi doono iyaga iyo dowladda federaalka ama xubnaha kaleeto ee weli diidan nidaamka doorasho meesha ka dhacay oo runtii aan wax badan oo la tilmaami kara aysan jirin 2 qof ayaa hadda runtii saluug muujiyey iyagana ma ahayn miisaan hadda bulshada ka muuqday laakiin waa haddii qof kasta oo maqan in la raadiyo sida dawga uu yahay waan rajaynaynaa khilaafyadaasna inay si hufan oo degan inay ku dhammaadaan annagana waxaan rajaynaynaa maadaama federaalkaas aan saldhig u nahay inaan ilaalino nidaamka dawliga ah iyo dowladnimada ku dhaqankeeda iyo dowladnimada taabagelinteeda iyo sharciga iyo kala dambeynta inaan gacmahaas wada qabsanno arrintaas ku dadaalno dadka kale markaasaan waxaan ugu baaqno ay macno yeelanayaan annaguna runtii waan uga mahad celinaya dadka reer puntland inay muujiyeen 21 sano oo ismaamul ah xaqiiqdii waa arrin taariikhda cusub ee soomaaliya baal dahab ka geli doonto isma maamulin keligeeda ay u gacan hadisay mujtamaca soomaalida kaleeto inay ka qayb qaato dhismahooda iyo dowladnimadooda aad baan iniga mahad celinaya soo dhaweynta iyo dadaalkaas labadaba waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi